maanta waxaan ahayba kalgacaylkiinna ayaan ku ahaaday salaan iyo sharaf ayaad iga mudantihiin lacag waa dhiibay qamro waan dhiibay ilaa iyo haddana wax ii suurtagala ma laha xay ku dhacda taas ii sheega adinkaa idin weydiinaya suuraj bartaab waa nin bulshada u wanaagsan intuu nool yahay ma laga yaabo inaad xil qabato ay isdaji mudane bulshada jecel miyaa ninkaas waa loo tagaa fiyoora qoota loo gelina weliba waa tuugaynaa ka waran ani adiga doorashadana dhex martay adiga ayaa ku guulaystay taasna waxaa sababa masaakiimiinta ayaa garab siisaa marka masaakiimiinta hortooda ayaan fiyoora kugu gelinayaa aniga ninkaas waxaan ku hayaa inas yahay suldaan waxaa lagu yaqaanaa ummaddiisa iyo dadkiisa dhiiggiisa iyo naftiisa u waraaxi aamus nin xil iyo tala kaaga soo baxay waaye aabbihiisas dhaxle fiir bartaab siinaa la dhahay dadka dhan waa kasbadayaan ku dheh faqiir iyo taajir intaba niyaddiisa waa u furan tahay dadka dhan sidaasay ku raaceen dadka ma yaseenin gobolka as degan yahay dhan asaa la raacsanay laakiin koo kale oo dayuus ahoo naagta ka cabsahay ah magaalada ku jiro amarkiisana la qaadaya laakiin sas yeeli ma taqaanaa 50 milyan ah hawsha dhan wayba noo fiican tahay 50 milyan maxaan ku bixinaa fiira si aan u soo dhaxgal darteeda war arrinta hadday bulshada qusaysa fiira inagama yeelay midaas mar haddaan shacabka kasbano fiira wuxuu naga qaadi kara ma jirto waa kana dhul beereedka ani sheegayay mar haddaan gacanta ku dhignana waxaa inoo fudud inaan warshadda dhex keenno mar haddaan warshadda meeshaan ka dhisnana shacabka gacanteena ku jiraan taas igu aamina saaxiibyaal kadib faa'iido badan aan helaynaa fiira dhul beereedkan hooyadiis iyo aabbiis ayuu ka jecel yahay taasna haddii aad adiga meel naga saarayso aniga waa kugu raacsanahay ambalyo igu haleeya waryaa ma taqaana qofkaan ahay fajay shirifastaf kumaar shirifastaf wiilkas ayaan ahay meeshaan ganacsi la maagana qof iga celi karta ma jirto aniga waryaa waxaad tahay markaad ii sheegtay ayaadba gacan gasha adiga si xun ayaan kuu garaacaya hay ma anigaad i dilaysaa micno dare inaanan dad ku dilin walaashii ayaan ka ballan qaaday dadka dhibaataysanna in aan garab siiyo aabbahay u dhimanaya ayaan ka ballan qaaday markaan ku qasbanahay ballantiinaan oofiyo saasaa gadaasheeda fiir inta qofooda taagan aniga haddaad ila dagaalamayso waa inaad 100 qof hore u soo wadataa haddaan adigu kula dagaalamayna 100 qof oo ku badbaadayso waa inaad soo wadataa dadka ila socda ma ujeedaa dad mashalaayaala oo dhiiga waryaa nin hooyadiisa gaajo ku fiirsaday awalba naxariis lahayn yaa waa qofka taladan xun ku soo siiyey oo ku yidhi gobolkan ka dhisa shirkado yaa waa qofkaas ii sheeg adaan kula hadla waryaa war adiga maxaa tahay aabbaha middan ayaan kuu diidayay waxaad u malaysaa aniga inaan kula dagaalamayo laakiin aniga kulama dagaalamaayo adiga waxaad isku dayaysaa hub inaad la soo baxid laakiin jaanis kuma siinayo adiga waxaad u malaysaa inaan dhintay laakiin adiga ayaan qabriga kuu sii wadaa oo isma ogid aniga ma raba dhiig inaan daadiyo laakiin dhiigan daadina haddaan ku dhaho gobolkan sida webi fatahmay oo kale ayuu dhiigga ugu soo daadanaya inta aan naxnaqin ka tag meeshaan dantaada ka hadal maalinta kuu sheega waxaan ay ganacsaday waxaan u baahdana dadka hadday haayaan waa ka iibsadaa waxay jecel yihiin aan ugu beddelaa aniga marka dhulkaagaan u baahdee iga iibi walaalow waa kuu danayna ama ii danay waa maqlay dadka beeralayda inay adiga kaa dambeeyaan waxaad ku dhahdaan dhulkiina ka iibsada ninkaas adigana waxaad sheegatid waa kugu shuba dadkan inay amarkayga qaataan waa aad maqashay laakiin ma kuu sheegi miya magacayga inta xarfo uu ka kooban yahay wax kalena ma ah waa fiiraa v haddaan micnaheeda kuu sheego waa wanaag aniga aan leeyahay oo maanta adiga aad igu soo hor fadhiisatay raac waa xaraf xayawaannimadeeda qariya adiga ha isku dayin xayawaannimadeeda inaad soo bixisay erayadaada markaa maqlay xasaasiye ayaan ka qaaday waxa idin dan ah intaanan xanaaqin meeshaan inaad isaga dhaqaajisaan haddii kale ahayn weji xunaad la kulmaysaan waxaan wanaag dadka ku weydiiyey minay war igu soo celshaan aniga waxaan aqaanaa inaan ka xoogo dabeecaddaasna waa leeyahay weliba minaan runta kuu sheego waxaan awood u leeyahay aniga gobolkan aad ku faanaysay inya kaa qabta bannaanka kaa istaajiya dhowcilka dhiga waryaa waxaad moogtahay dadkan beeralayda kalsoonida buuxda ay aniga igu qabaan dadtoodane wax walba ayaan u samayn karaa ee waxa ahaysa soo daa sharadkan aan maanta sheegtan diyaar ayaan u ahay aniga haddaad iga guulaysato waxaan ballanqaadayaa gobolkan agaarkiisa inaan soo istaago inaan ka baxo laakiin haddaan kaa guulaysta eeyahan aad soo korsatay adigaba in aadan gobolkan soo fargashanayna ballan ayaad iga qaadaysaa diyaar ma u tahay ma kulaal yahay waxbaha isku kay xarfaanin aniga waa ibaraha ima taqaanid qof waliba xanaaqiisa xad ayuu leeyahay aniga laakiin intaan isxakamayn karo waan isxakameeyaa mar laakiin haddii aan xanaaqo ogow adiga kaligaa ma dhimanaysid inta kula socota meydkooda ayaa meeshaan laga aruurinayaa gabal ayaan idiin jaraya adinkaran cid badbaadaysa ma laha aryaa fiira
qaylada hoos u dhig ee wejigaaga iga leex hay u dhimanine cajaa'ib fiira intuusu imaanin meeshaan adigii iskaga tag haddaadan meeshaan ka tagin adiga dabadhilifkaaga waxaad ogaataan inuu buunkiina yeerinaayo ama awooddaas u leeyahay haddii aa ninkaas isku taagtaan ogaad waad baaba'aysaa markaasaa i maraayo aniga waaba ogaaba viira inuu dadka masaakiinta naftiisa u huraayo sanaagtiisaaba ka dartayba aniga maha waa ka kudaa laakiin mugan kudaayo waa muga aan dadka dhan xaalofiyey aliya viira dadkayga kuwa uga daciifsana disha asad khatar isku maraysay minaad awood leedahay soo socan ku dhasha bisori anaa sheeko kuu qoray oo macaan badana maanta sheekadaada aniga ayaa qoraya digniinta aan ku siiyey waad ka madax adeegta laakiin ballan waxay ugaataan kugu dhigo cumrigaaga inaad ka sheekayn doonto waryaa aniga maalinta waan kuu sheegay haddaad iga xanaajiso waxaan ku dhahay keligaa ma dhimanay sidii kulligiin waa baaba'aysaan waxaan ku yidhi xayawaanka gudaheeda ku jira haddaan mar bannaanka u soo bixisa natiijo xun ayaad igala kulmaysaa ey viirama yaa soo wacd hallo ma imaaday ma cararta fulayahu intaad aadday war markaan kaa cararaya fulay adoo kale maad ii malaysa aniga waryaa raag ayaan ahay intaad joogtahay ii sheega maalintii sakan haddaan gadaal soo fiirin lahaa wakhtigaan adiga iguma aadan jaqjaqlayseen ee haddaad rag tahay ii imow waxaan joogaa meesha aan familkaaga ku laayay haddaad rag tahay imow ii kaadi ana hadda ku imaanayo ayaa viiraa waa imaaday maha iskaan haddaad rag tahay ayaa viira mad u jeedaa baangadan qaloocan waa baangadii reerkiina aan ku shafay sida beertii oo kale dhulka u wada seexshay weliba islaantaada iyadoo uur lahan cunuga bannaanka uga soo baxshay maantana aday dhigaagu oo maanta 7 sanay ku sugaysay waa igu balan inaan margiyada kaaga siiban kugu soo laalaabo meel aad ku fakatid malaha maanta waa dhimane adiga naftaada ayaad la baxsatay weliba adigoo aniga iga cararaya maanta waad soo laabatay adiga haddaad seef aaminsantahay aniga carradan ayaan aaminsanahay weliba dardaaranka aabbahay ayaan weli ku taaganahay iskan arya xayawaan adoo kale haddaan dhaafo dadka bini'aadanimada ayay qalad ka fahmayaan maanta ma ku inaad dhaafayo isbitaalka ka dhuuman lahayd waa iga badbaadi lahayd laakiin maanta mahana qoortaada dhigaa cid iga kaa badbaadinaysa waxaan kugu wacay inaan ku dilo ma ahane inaad adiga dishid ma aha ee soo soco